kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal qodobada wararka waxaa ka mid noqon doona madaxweyne Farmaajo oo safar degdeg ah ugu ambaxay dalka Djibouti halkaas oo ka furmi doona shirka wadamada IGAD loogana hadli doona xiisada gobolka gaar ahaan Soomaaliya iyo waliba Kenya. maamulka Jubbaland waxa uu ka hadlay xiisada ka taagan gobolka Gedo iyadoo markan ay sheegtay inay ku dhawaaqday in ay isdifaaci doonto. iyo waliba sidoo kale wasiirka amniga Jubbaland Cabdishiid Janan oo isagana iska fogeeyay eedeymo u soo jeedisay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya barakac laga dareemay deegaanada balad xaawi iyo waliba xiisad ka taagan iyo waliba guud ahaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ayaanu dabcan wararka caaw ku soo qaadan doonaa daawadayaal. haddii aanu daawadayaal ku bilowno madaxweynaha dalka mudane Cabdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminayo ayaa u ambaxay dalka Djibouti halkaas oo ka qayb gali doona shir degdeg ah oo wadamada xubnaha ka urur goboleedka IGAD ay kaga arrinsanayaan xaaladda gobolka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa madaxda dalka IGAD ka hor dhigi doona dacwad ay dowladda Soomaaliya ka gudbisay Kenya oo ku aadan in Kenya ku xadgudubtay madaxbannaanida iyo waliba midnimada Soomaaliya. safarka madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ku weelinaya wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika ee badda cas iyo gacanka cadmeed Danjiro Yuusuf Garaad Cumar iyo waliba sidoo kale howlwadeenada Villa Soomaaliya. waxaana sidoo kale la sheegayaa in uu maalinta beri ah laga yaabo inuu magaalada Djibouti isagoo uu soo gaaro taliyaha hay'adda nabadgelyada qaranka Fahad Yaasiin oo isaga ah awood badan ku leh dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. waxaana la aaminsan yahay madaxweyne Farmaajo uu hordhigi doono golaha IGAD dacwad kalena Kenya oo ku aadan xiisada gobolka maadaama dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay gabi ahaanba xiriirka u jartay kii diblomaasiyadeed ee dowladda Kenya isla markaasna safiirkeedii u fadhiyay magaalada Nairobi ay u yeeratay. xiisada gobolka ayaana hadda mid aad u xasilnoon isla markaasna waxaa la sheegayaa in golankani IGAD ee gaarka ah diiradda lagu saari doono xiisada labada dhinac ee ku aadan dalalka Kenya iyo waliba Soomaaliya. shirkan oo lagu martigelinayo Djibouti ayaa la filayaa in Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Djibouti uu taageero buuxda siin doono Soomaaliya markay dhamaado isbarbardhigga dalalka taageeri doono xiisadani dhinaca gobolka ah. waxaana sidoo kale la sheegayaa in shirkan uu ka soo qayb gali doono madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta inkastoo ilaa hadda aan si toos ah loo shaacinin inuu imaan doono shirka iyo waliba inuu sida qadka telefoonka Zoom-ka loogu yaqaano uu kaga soo qayb gali doono maadaama xaaladda coronavirus darteed uu iskaga joogi karo. balse Kenya ayaa waxay hore u sheegtay inay markasta diyaar u tahay in xal diblomaasiyadeed lagu dhameeyo xiisada labada dhinac ee Soomaaliya iyo waliba Kenya. dhinaca kalena Jubbaland waxa ay qoraal ka soo saartay xaaladda gobolka Gedo ay ku sheegtay markale ay diyaar u tahay inay isdifaacdo iyadoo ku eedeysay madaxweyne Farmaajo inay colaad ka horanayaan gobolka. waxaana dowlad goboleedka Jubbaland ay aad uga xuntahay baa lagu yiri qoraal ka soo baxay xaaladda murugsan ee muddada dheer ka jirta gobolka Gedo taasoo cadeynaysa in madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba hay'adda nabadgelyada oo isticmaalaya magaca qaranka Soomaaliyeed iyo hantida ummadda Soomaaliyeed bay colaad kaga horanayaan gobolka Gedo iyo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa oo arintaas oo muddo sanad taagnida ayaa lagu yiri qoraalka. Jubbaland ayaana sheegtay in dowladda federaalka ay iska tirtay go'aano isdaba joog ah oo ay beesha caalamka ka soo saareen oo lagu baaqiyay inay qaboojiyaan xiisada gobolka. waxay intaasi ku dartay inta beddelkeeda ay dowladda ciidan hor leh ku daabashay gobolka. waxaana qoraalka lagu sheegay in Jubbaland ay arintan u aragtay nasiib darro isla markaasna aysan u dulqaadanaynin waxa ka taagan gobolka Gedo isla markaasna ay sheegtay in ay bilaabi doonto inay isdifaacdo iyadoo markan ay sheegtay difaaceeda inuu ka bilaaban doono isla gobolka Gedo. isla wararkaas ayaanu ku jirnay waxa sidoo kale la sheegay in barakac ka bilowday deegaanada balad xaawo iyadoo la sheegay in xaafadaha u dhow dhinaca xadka ee dalka Kenya la sheegay in dadka shacabka ee deganaa ay isaga barakaceen kadib markay sheegeen in ay ka cabsanayaan in korkooda lagu dagaalamo maadaama ciidamo uu wato wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdishiid Janan la sheegayo in iyo waliba sidoo kale gaadiid dagaal oo tiro badan in ay dhinaca Mandheera ay ka soo baxayaan caawo taas oo la sheegi karo inuu dagaal ka qarxi karo xadka. waxaana maanta ay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday dowladda Kenya ku eedeysay inay hubeynayso jabhad sharci darro isla markaasna dalkeeda ku martigelisay taas oo ku sheegtay in haddii taasi ay dhacdo ay noqon doonto dagaal iyadoona sidoo kale ku eedeysay Kenya in ay Soomaaliya rabto in amni darro ay ka bilowdo isla markaasna deegaanada Jubbaland ay rabto in ay maamusho iyada. wararkaas ayaanu ku jirnay waxa sidoo kale wasiirka amniga ee dhinaca Jubbaland oo isagana hadlay waxa uu sheegay in wararka sheegaya in ciidamo isaga wato dhinaca Mandheera ka soo baxay aysan jirin taasi isagoo sheegay inay tahay war ku turkutana qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook saacado ka hor ayuu ku sheegay inay taasi jirin isla markaasna uu sheegay inuu hadda ku sugan yahay magaalada Kismaayo. wararka sheegay inuu ku sugan yahay dhinaca
dhinaca Mandera ay tahay warar aan ilaa hadda aan la hubin. intaas ayaan ku soo gabagabaynaa warka caawatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.